fureen masaa gawaadhida toban kale tir ku shubay shidaal beeshay gooja caddasaa loogu galay maxaa baalaha iga yaacay kuway dhacdeen waxaa la sheegayaaba Nigerian mafia ayna soo kiristay ayaa suuqa ku jirta qalab yar oo laga jaamgaraynayo haddii la doono guri jigjiga yar ku yaalla laga kantaroolayo ayay leeyihiin waxaa lagu gelaya doorashada oo waxaa lala tegayaa meelhable dhulka mucaaradkoodha bay doonaya jaamgareeyaan ololaha reer kulmiye ay bilaabeen xisbi iyo wasiirraba ay bilaabeen ay leeyihiin waxaa lagu gelayaa indhaha waa arrin ay mira toos ka leeyihiin oo weliba faashila oo ay muuqato inay doonayaan in majoritiga mucaaridku inaanay codaynin sababtoo ah bahashani indhuhu iyadoo sideedaba waxaan electronigaa uu badan yahay mistakeskiisu ayaa haddana waxaan tuunsanahay inay farsamo hayaan ay ku jaamgarayn doonaan indhaha khaasahaan goobaha mucaaridku xoogga ku leeyahay tusaale labaad markaa bixiyo marka qofku goobtiisa soo taago ee magaciisii qoran yahay ee uu kaarkiisito xukuumaddu iyo xisbigeedu iyagaa muraadle lacagtii bay hayaan waxay hayaan ciidankii nabadgelyada sugi lahaa rool bay xukuumaddu ku leedahay qabashada doorashada komishinkoo keliyii ma laha waxay doonayaan ku cadaadiyaan hadday suurtogeli weydana ay muddo korri ku helaan oo ay buuq ku abuuraan waa sababtay u faragelinayaan hawshii komishinka ee komishinkoon ku dhawaaqa waxaasaa lagu gelaya oo tijaabo uu sameeyey soo bandhigin oo farsamo lagu kalsoon yahay aan soo bandhigin ay u leeyihiin waxaa lagu gelayaa indhaha oo mucaaridkaa wax boobayay tuugtaa marka la eriyado qofka tuuggaa ayaa marka la eriyado kuwa xarfaantii dadkuu dhex raaciya wuxuu tuugga qabta dadkii tuugga qabta lagu dhex raaciya deetana waa la wada yaacaa tuuggii mee hadhown baa la isku meeraystaa oo tuuggii mee xaw ka bax dhoolku waxa weeye reer kulmiye iyaga doonaya inay waxadaan oy boobaan bahasha oy musuqaan oo farsamadan electroniga ah ee aan shaqaynayn ay ku musuqaan qalab yar oo laga jaamgaraynayo haddii la doono guri jigjiga yar ku yaalla laga kantaroolayo ayay leeyihiin waxaa lagu gelaya doorashada oo waxaa lala tegayaa meelhable dhulka mucaaradkoodha bay doonaya jaamgareeyaan haddii doonaya kala diraan waa marmarsiyo kale oo ay kordhinayo buuq ku doonayaan taasi waxa weeye taasi waa hadal doqoniibaa kii ugu weynaa dee ninku caadi maaha dee saaxiibkay waha uu yahay laakiin caadi maaha dee dadkuna caadi bay moodayaan caadi maaha muuse aan aqaanin maaha waa muuse kaloo cusub waa muuse kaloo aan sideenna haynoon caadi ahayn ma garatay hadduu muuse aan aqaano yahay isuma soo sharxay waan sharxanahay buu yidhaahay hadduu muuse aan aqaano yahay haaladee gooja caddasaa loogu galay maxaa baalaha iga yaacay kuway dhacdeen markaa waa muuse cusub oo aynan garanayn oo unpredictable ah oo meeshan uu sii fadhiyo uun doonaya midina waa geedka go'aaliyadu oo wax shakiyo ku jira ma jiro muuse sidii doorashadii 17 inta sanaaduuq la dhigo heeladee muuse olea waa lagaa helay muuse ilaa waa wareejinaya
taasina waa wax abacdaas kasoo baxeen Soomaaliland way jiraysaa meehii dadka yidhaahda ma jirayso in gacanta muuse ku burburaysa waxba ku burburi maayaan laakiin wuu ina dhibaataynayaa in dhibaatooyin lagu filan maxay tahay in dhibaatooyin filan faraqa ku haysta inagoo marka horeba in dhibaatooyin lagu filan faraqa ku haysani ayuunbu yaroo kaloo culaysayna sii gaarsiinaya oo dhibaataa laakiin Soomaaliland qof burburi mayso qofna ma burburin karo labana ma burburin karaan aakhirkana qofka iska tegaya dalku ma dhammaado shaqo dawlo ma dhammaato qofkaa dhammaada taasi waxa weeye taasi waa wax bini'aadmi caqligooda aanu qaadan karayn mataliyay ka ahaayeen oo fureen mataliyu ahaa saddex taalib ahaa oo fureen masaaga gawaadhida toban kale jirku shubay shidaal beeshay oo fureen gawaadhida ku cadlayd meesha masaaga meesha dhigay oo fureen goynta shidaalka siday ee shidaal beeshay dusheeda iyo taangigeeda isaga isu diiday kuwa isu diiday وشيك عروض لما هي عروض تبع حلو وشيكين ummadda waxaad u iftiimisay ورنعسني ما يكون هذا يعني نعسني وبدك الفلسطيني أو إسقرية أو حشود أو إسقرية أو لونتا إلى لون تابه إلى مد صورتك إلى تربية هاي روح على شيء يا ذا نيجيريا ما في أي سوق كريستي أي سوق كتيرته وبهذا هلو شام كريستا لكن واحد صعوري يبه معارف هدي أقبلان إنه هو قال إيشان ساعدي أقبلان هسكور يتيال حلك موسى ساعدي أقبلان إنه هو قال تاي لها ساعدي حتى السؤال الله مضبع موسى حلك كور يتيال شان سرون ضبلها وصحيحان su-aasha ugu dambaysa ku weydiinaya waxa weeyaan muddooyinkii ugu dambeeyay burcad ku sugnay waxaan tabliiqi labadeed tabliiq diimeed ba aragteen tabliiqi labadeed ma aragtay weli tabliiqi labadeed baan labada barigaas ka shaqeynay gobolada bariga colaad baa ka jirta colaada in la dibiyo baa loo baahan yahay ummad inay nabad ku wada marka ma waxaad leedahay galbeedna barwaaqo ay ka jirta barina beeruud baa dhex taala saddex gobol bariga waxa la dhigay colaad oo xukuumadda Muuse ay dhigtay dadku waa dhibaataysan yihiin meel colaad ka jirto aan nabad ka jirin dhibaataa taala waxa taala baahi waxa taala khasaaro rafeed noloshu nabadgelyada ku jirta waxaan tabliiqaynay oo ka shaqaynay bil iyo markaan joogay tabliiqi nabadeed baan ahaa gobolada bari sidii nabad looga heli lahaa ee nabad loogu soo celi lahaa ayaa ka shaqaynay meel wanaagsan oo maraysa way soo gaadhay ilaahay xamdigii maya waayo arag baynuu nahay meel colaadi ka jirto inay inama yaryari oo qaad waay ama khamri doonaya intay israacaan inay waddooyinka istaagaan waayo arag baynu wax badan bay dhacday oo dhexdeena ka dhacday waynu u soo joogin meel kasta caqlilaa wuu joogaa reer buu hodnala sidii la rabay bay yeeleen sidii waajibkaa bay yeeleen nimanka horta gobolka kagu dhicino way soo qabteen jeelkay dhigeen maydkiina talaagaday geliyeen ehelkiisii bay fariinta u soo direen waa la wada hadlay si fiican bay u aaseen arrintuna waxay u taallaa markaa marxuumka iyo ciddii arrinkiisa lahayd dadka way ka baxeen mar haddii la soo qabto nimankay xilan yihiin dilkoodiisa abaxaadoodaba ehelkiisii baa le dadka kale halkaasi ka baxeen